marka Soomaalidu waxay tiraa xagla laaban xoolo kuma yimaadaan ودعاء loo baahan yahay nin wadaadaba wax laga sheegay waxa weeye magaranaysa bariga halganka uu socday gumaystigu dalka haystay ayaa niman wadaada buu yiri magaranaysa ku baraarujiyay in halganka la galo oo waxa weeye maxaa ku leedahay wadanka la xoreeyo waxay yiraahdeen waa ducaynayna anagu ducaanu hayna marka intuu isugu yeeray buu wuxuu yiri bakeer buu soo dhaxdhigo bal bakeerigaas wuxuu yiri quraanka jabiya quraanka inta nin walba waxad ilaahay ku baray akhriyo bal koob kaas lagu jabiyo maxaa ku leedahay quraanka de koob quraan ma jabinayo wax kasto la akhriyo ma jabinayo mala doofris ficil bay u baahan tahay wixii markii ay daaleen odayadu buu yiri maxaa bismillaah intuu soo qaatay buu bismillaah buu yiri oo markaas uu burku dhiftay markaas intaas wax walba ficil bay u baahan yihiin marka dalkeenu waxa uu baahan yahay ficil niyad saalixa kow marka ugu horeysa niyad ducada lafteedu xitaa niyad saalixa bay u baahan tahay niyad waxa weeye maxaa ku leedahay xaqdi iyo xasad ka buuxo ilaahay waxba ka aqbali maayo waxaynu u baahanahay niyad saalixa waxaynu u baahanahay ficil saalixa waxaynu u baahanahay halgan dheer baynu u baahanahay oo dalkeena ku xoreysano dadkeenana ku midayno waxa weeye maxaa ku leedahay ilaahay subhanahu wa ta'ala saaxiib yahay ku soo dhawaada marka la muuqaalkan oo aad u xiiso badan muuqaalkan waxaan ku gafan doonaa ama aan kaga hadli doonaa maxay tahay fayraskan haysta hadaynu nahnay Soomaali bal muuqaalkan ayaan rabaa inaan kaga hadlo iyo soo dhawaada asxaabta diyaar janal ku cusub tahay waxaan ka codsanayaa inaad janal subscribe ay saarto muuqaalkan ila garay si dad u gaaro muuqaalka Soomaaliya mar walba waxaa lagu soo celceliyaa Soomaali maxaa ku dhagan maxaase haysta maxayse ilaa hadda isla qabsan laadahay maxay tahay dhibaatada hortaagan Soomaaliya taa ilaa hadda ay ka kaban laadahay siyaasiyiin fara badan ayaa arrintan isweydiiyey iyo meesha laga haysto Soomaaliya oo dhan taa ay tahay qabiilkana uu yahay meesha hadda aynu joogno waxana keenay laakiin maanta haddii aysan jir lahayn qabiil ama qof qabyaalada si xun u isticmaalo uusan jir lahayn ma aysan dhici lahayn miraha hadda aynu guranayno oo ah wixii anaga gacanteena aan ku kasbanay ayuu yiri taas ayaa xaqiiqo ah run ahaantii markii loo fiiriyo sababtoo ah Soomaali haddii aan nahnay anaga ayaan gacanteena ku keensanay ama dhibaatadan ama aan ku kasbanay anagoo fiirinayno qabiil jufo iyo sidoo kale inaan ku taageerno wax walba markaasi aan awoodno laakiin wixii hadda dhacay waaba dhaceene ay leeyihiin dadka in gacmaha la isqabsado Soomaali ay midowdo ayaa waxaan meesha ka soo bixi karaa wadan aad u qani u ah oo haddana aad u qurux badan laakiin taas waxaa jirta dad fara badan oo arrintaa ka jiifa oo aysan rabin laakiin in dalka dib loo xoreeyo waxay u baahan tahay haddana juhdi kale iyo dadaal kale in lagu bixiyo sida aad juhdi ugu soo bixiseen markii dalka la burburinayay bal hadda adiga dhegeystow maxay kula tahay maxayse kula muuqataa arrintan waa ii muhiim fikradaada qaybta commentiga oo si gula wadaag siina shargaree muuqaalkan si dad badan ugu gaaro haddii aad tahay wadani Soomaaliyeed waafajiyo inaya ummadda Soomaaliyeed waxa aynan horta ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu qoom maduleeyo ilaa iyagu istuleeyaan waxa inagu dhacaya waa waxaynu inagu gacmaheena ku kasbanay waa waxaynu doonanay waa waxaynu energy ku bixinay waa waxaynu lacag ku bixinay waa waxaynu magaranaysa u sacyinay oo aynu u dhafarnay oo u soo jeednay midhaha aynu guranayna hadda midhaha aynu doonayno ee ah barwaaqada inoo dhul barwaaqa waynu haysanaa dad wanaagsan waynu nahay oo aad iyo aad magaranaysa maxaa ku leedahay hadday fahmaan oo ay isfahmaan dad waxa weeye energy leh oo waxa weeye maartay karti badan oo genius oo dhul qaniya haysta waynu nahay laakiin virus khatara oo waxa weeye dilaaca ayaa inagu dhex jira viruskaas ilaa la daweeyana xaaladeenu waa khatar weyn ilaa madax ilaa manjo waxa weeye dhamaanteen viruskaas waa ina wada hayaa viruska qabyaalada ee ah kii dalkeena burburiyay ee 30 sano aynu u burbursanayn marka waxaan leeyahay waa niyadana waan hagaajinaynaa insha Allah bismillaahi kariim oo ducadana waan wadaynaa dadaalkiina aynu la nimaadno waayo markaan sidaa leeyahay waxaan inkastaan idinku dheereeyay hal ahaado waxaan ka duulayaa oo ka soo shidaal qaadanaya ambiyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay waxa weeye adoomihiisa wuxuu ku jecel yahay ambiyadu waxa weeye iyagoo aan ciidan wadan oo waxba wadan ayaa la soo diraa iyaga la oran lahaa ducaysta oo barya oo magaranaysa anaga dadka idin soo hanuunin idin keenayne
lama saareen oo waxa weeye maxaa kula qaarkood lama dileen oo qaarkood lama xidheen oo qaarkood lama masaafuriyeen oo qaarkood lama dagaalameen haddii ay sidaa wax duco wax ku imanayaan marka Soomaalidu waxay tahay xagla laaban xoolo kuma yimaadaan waa duco waa loo baahan yahay difaac qaran qodobo waaweyn baad ka dhawaajisay oo mudan in mataqaanaa la bogaadiyo oo wada qaato oo dalka iyo dadka iyo diinta dan u ah waxaan siinayaa horta su'aal baan weydiinayaa qof walba meeshan soo gala ama qodobka laga hadlayo waxa weeye khudbadii maanta madaxweynaha uu ka hadlay khudbad ka turjumaysa qarannimada Soomaaliya iyo mabaadi'da asaasiga ee dowladnimada iyo tiirarka dhexe ee dowladnimada asaas oo heer qaran waa la dhihi karaa khudbadan oo unitary ah oo horumar gaarsiin karta iyo amniga iyo wuxuu ka hadlay amniga iyo wuxuu ka hadlay abaaraha oo aad aga hadlay waliba amniga wuxuu xusay in dadka localka dadka civilianka inay ka qayb qaateen dagaalka oo ciidamada ay ku garab siinayaan maxaa ka dhalan kara maxaa ka imaan kara ama qabataynta hubka la sugayo in laga qaado Soomaaliya qaabkee ku socotaa mideeda kale arrimaha abaaruhu ka hadla xal waarana kama hadlin laakiin in la ka gargaaro COVID-19 ku hadlay oo hore marka su'aalaadii soo dhow waa ku salaam marka hore soo dhow waa dhawahay mahadsanid waan wiilka dalmar u dhig adiga mudan ugaas dalmar baa ku soo gacanta u taagnin miya dalmar ku soo mar hore u hadle waxaan rabay inaan ku dhaafiye mar hore u hadle dalmar ku soo dalmar waa mana maqashaa dalmar waa laga yaabaa inuu iskuulay anigu waxaan ku oran lahaa dadka horta khudbadda u saarba markaa ha la falaqeeyo oo dadku barkay wada fahmaan wuxuu madaxweynuhu ka hadlay markaa xoogaa dadku waa laga yaabaa inay isfurfuraan oo qofba fekerkiisa u arko si kale laakiin inta badan waxa laga yaabaa inaanay aragba ama dhegaysan anigu maanta rajadan ka qabay dhinaca madaxweynaha ma arag waan arkay speechka hal wuxuun baan ka rabay hadduu oran lahaa war arms embargo baa ay saaran 30 sano ciidankayga hub ma haystaane iga qaada cajab anaa isku taagi lahaa maanta intaa qura hadduu oran lahaa dee waa kana hadhaho securityna wuu ka hadlay ma iskasho horta qudud walba uu ka hadlo madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo oo ciidanka dhismihiisa iyo wax walba iyo la dagaalka al-shabaab wuxuu dhihi jiray han la ka qaado noqotaynta hubka annaga isku filan annaga ka gaarayna al-shabaab ciidamada amnisoona ka maarmi doona qodobka horta ma dhihin hadduu qodobka dhihi lahaa maanta waxay aan lahayd big achievement uu aan lahaa uu gaaro waa la garab istaagi lahaa qodobka oo muhiim ah ma dhihin mideeda kale abaarihii iyo waxyaabahaas ku hadlay iyo gargaarka iyo dowladda wax ku yaboohay iyo waxyaabaan maqlaayay marka waxyaabahaas oo dhan dhowtii inay ku dhamaadaan isqabqabsi iyo corruption iyo dadkii shacabka ahaa oo laga lansado hantidooda Soomaaliya waan naqaanaa dadka hadda wasiiraha ana inta badan waan naqaanaa waxay yihiin NGO-ya badan baa kusoo yaacay Soomaaliya kuwa ajnabi leh kuwa Soomaali leh waxyaabahaas oo dhan baa horta jira oo dhibaato ah khudbadda waa saari lahaayeen salaadiino waxaan haynin telefon kale oo aan ku saaro marka haddii wax ku dhiman yihiinna waa dhamaysanaysaa haddii kalena waxaan siinaynaa dalmar iyo qoomi u dhib shacab kale u dhib qoomi ma dhegaystay khudbadda soo dhowo qoomi ها walaalkay xaashi waa ku salaamay mar hore isku waa kaa qaada ku soco salaadiinna waa salaamaya walaalkay asagana sidoo kale iyo walaalaha kale dhammaan meesha ku jiro maxaa la dhahaa dee wax walba way muuqdaan qof walbana wax ugu arkaa marka waddanka sidiisaba wax cusub inaad dhegaysatid ama maalin walba mataqaanaa in la hadlo waxaa ka qiimo badan waana aragtidayda ficil muuqda